Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta waa islaamay dhammaantiin meel kastoo joogtaan. Waxaad kusoo dhawaataan casharkeena barashada luqadda carabiga iyo kitaabkeena naxw alwaadix. Casharkeena waxaan qaadanaynaa tamaariintii casharkii kan ka horreeyey kaana wa akhawaatuhaa tamaariintiisii ayaan xoogay dul maraynaa. Kulley waqti badan ku bixin mayno tamaariinta. Waxaa loogu talagalay ardaygu inuu ka shaqaysto waxa weeyaan isagu uu waqti geliyo oo uu fahmo si uu u fahmo ma garanaysaa casharkii fahan dheer uu uga qaato ayaa kulley loogu talagalay. Marka meelaha qaar ayaan ka shaqaynaa, inta badan waan ka boodaynaa insha Allah. Okay, تمرينات. بين كل اسم وخبر لكان وأخواتها في الجمل الآتية. waxaa lagu yiri bayin qeex ama cadee kula ismin wa khabarin magac ismi kasta iyo khabar kasta waxaan soo dhiganay bay ahayd kana wa akhawaatuha inay gasho mubtada iyo khabarka mubtada ina markanaysaay ismi la oranayo khabarkiina khabar uu ahaanayo laakiin ismu kana ama ismu saara uu noqonayo khabaru kana ama khabaru saara uu noqonayo. Marka mubtada wuxuu qaadanayay rafcigiisii buu haysanayay khabarkuna mansuub ayuu noqonayay markii ay kaana ka hor dhacdo ama walaalaheed ay ka hor dhacaan. Marka waad garanaysaa kaana maxmuudu shujaacan baa lidhi ayna ismu kaana wa ayna khabaru kaana intaas kaliya la rabaa aaway khabaru kaana ismu kaana ama khabaru kaana. Marka ismu kaana waa maxmuud shujaacana waa khabaru kaana weeyaan. Marka intaa kaliya weeyaan intaasaa kugu filan casharkan saasaad uga shaqaynaysaa. waxaad sheegaysaa kaliya maxmuud baad hoosta xariiqaysaa shujaacna hoosta baad xariiqaysaa saasoo kale baad uga shaqaynaysaa. waa markaasi waa ismigii baad oranaysaa kana waa khabaru kaana ismu kaanad ku hoos qori kartaa ama khabaru kaana saasaad uga hoos qori kartaa. Marka sidaas weeyaan. okay waxaa la halkan adkhil kaana geli baa lagu yiri على جملة من الجمل الآتية جملadahan soo socda jumlad kastoo kamid ah washkul oo xarake aakhira kulla kalimatin fiiha kelimad kasta oo ku dhex jirtana xarakadeedii baa lagaa rabaa. alxaarisu mustayqidun xaarisku waa mubtada iyo khabar markaasi alxaarisu waa mubtada marfuuc mustayqidun waa maxay weeyaan waa khabar marfuuc. Marka kaana markay gasho maxay sidee noqonaysay kaana alxaarisu mustayqidan taasay noqonaysaa. Marka inta kale sidaas ayaad uga shaqaynaysaa. alxaarisu mustayqid waxa weeyaan waa waardiyihii uu soo jeedaa weeyaan. alcaamu xaarun sanadani waa kulayl. alxisaanu musrajun xisaanku ama farasku waxa afka loo geliyay ma garanaysaa waa musraj wuu xakamaysan yahay baa la dhahaa Soomaali xakamayn weeyaan. alxawdu mumtali'un almiftaaxu daayicun. marka kulley inahaas baan kusoo koobaynaa kasoo gudub. أدخل صار بالغ حقنا قلي على كل جملة من الجمل الآتية واشكل آخرها كل كلمة فيها سيديو كلون ويان لا فرق فرق يوضح يمجرو الشجر مورق جيدك وعلى ويان الشجر مورق وحوار سمرك صارت قلنسا صار الشجر مورقا بين قنص حاجة قنطا بين قنصا انت سوينا ثمر ناتج مره هو بسلادين النور ضعيف النور هو ضعيف ساسا وش قينا سمركاسي هاسنا انت هاسنا كسو كوبينا iska fududahay kitaabkan aad buu fudud yahay. adkhil gali baa lagu yiri laysa gali waa sidii oo kale oo albinaa qawiyan yani laysana waxay sameeynaysaa in iyadu macnaha bay kaga duwanayd waxay ahayd yani maahin waa nafyun bay keenaysaa. albinaa qawiyan laysa albinaa qawiyan bay noqonaysaa. adcaamu shahiyun laysa adcaamu shahiyan saa bay noqonaysaa. Marka sidaas ayaad uga shaqaynaysaa. kasoo gudub adkhil gali baa lagu yiri asbaxa gali على كل جملة من الجمل الآتية جملة كسو جملة سو صار كميدا واشكل آخر كل كلمة فيها جملة كسو يدا كميدا مركز حركي بقى لقولي الديك صائح ديكني وحوين وقيلنا يا مركز محنا قنسا أصبح ديك صائحا أصلا قنسا العصفور مغرد أصبح العصفور مغردا أوكي خاصنا واسداس أتمم الجمل الآتية جملتها soo socda dhamaystir baa lagu yiri thumma inta dabadeedna adbid washkul weeyaan awaakhir kula kalimaatiha bishakli xaraka marka saar baa lagu yiri. marka kaana alxaakimu xaakimku wuxuu ahaa caadil baan gelinayna macaadilun buu noqonaya mise caadilan kaana alxaakimu mise caadilun caadilun midkay noqonaysaa kaana alxaakimu caadilan oo kala oranaysaa. saara alcaduwu
مهزوما صار العدو مهزوما mid jaban uu jabay yani ciidankii marka saasaad oranaysaa laysa aldawaa'u yaa dawadu ma ahin mufiidan mise laysa aldawaa'u waxa weeyaan marka kelmadda galaysa kelmadda doonto waa noqoto wixii doontaad gelin kartaa laakiin waxa galaya waa inuu noqdo wax fatxa leh markaasi xagga dambe fatxa ka qaatay fatxateyn qaatay oo mansuuba waa inuu noqdo wakaas marka kelmad ku habboon baad u raadinaysaa ood gelinaysaa dalla alcaduwu dalla alcadlu dalla wuu ku sugnaaday alcadlu caadilkii qaa'iman mid taagan oo kale oran kartaa marka kelmado ku habboon baad dayaysaa baad gelinaysaa okay admin aljumla aatiya jumladaha soo socda dhamaystir baa lagu yiri biwadci alismi almaxduuf adiga oo markaasi xadfaya magaca fi lmakaan alkhaali meelaha bannaan biwadci alismi almaxduuf adiga oo magaranaysaa dhigaya ismiga xadfan la xadfi geli baa lagu yiri ismigii baa macno marka halkan hore khabarkii baa magaranaysaa la rabay khabaru kaana ama khabaru saara ayaa la rabay halkana waxaa la rabaa ismigii baa la rabaa ismigii baa laga xadfay halkana ismigii baa ka marka ismigii baa laga rabaa kaana aljeyshu oo kala oranaysaa mustabidan kaana wuxuu ahaa aljeyshu mustabidan mustabid buu ahaa laysa alfaqru oo kale caaran ceeb maaha faqrigu marka taasoo kale oranaysaa marka kelmadda galaysaa waxay noqonaysaa mid qaadata damo mid qaatay noqonaysaa marfuuca oo ismu kaana marfuuc bay noqonaysaa kana maxay noqonaysaa ismu laysa marfuuc khabaru laysa mansuub wey kana marka kelmadaha halkan galayaay kelmadaha ku habboon waa inay noqdaan marfuuc waa inay noqdaan intaasun baa lagaa rabaa kelmad marfuuca oo ku habboon baa lagaa rabaa okay kasoo gudub كون baa lagu yiri 8 جمل تشتمل كل اثنين منها على المضارع من كان وصار وأصبح وبات على ترتيب samee baa lagu yiri 8 jumladood tashtamilu koobsanaysa calaa kulli ithnatayn mid kastoo iyada kamidihiiba laba kastoo iyaga kamidihiiba ay markaasi minha cala mudaaric ay noqonayaan min kaana waxay noqonaysaa mudaariceedii yakuunu saarana maxay noqonaysaa yasiiru asbaxana maxay noqonaysaa yasbaxu baatana yabiitu bay noqonaysaa marka mid kasta laba ka dhig ama yakuunu الصبح ayay noqonaysaa qariiban marka waxaad ka dhigaysaa markaasi saara uu ahaaday weeyaan yasiiru uu ahaanayaa weeyaan yasiiru annahru mumtali'an oo kale marka jumlada saas ayaa lagaa rabaa okay tamriinu fi linshaa kuwana waa inshaa kawan 5 jumal fi wasfi aljaw jawiga aad ku tilmaamayso بحيث تبتدأ كل جملة منها بكان كان هذا ku bilaabaya kana aljawu mumtiran kaana muxuu ahaaye almadaru ghaziiran oo kale waxyaalo jawiga ku saabsan ayaa lagaa rabaa oo magaranaysaa aad kaga hadlayso inaad markaasi samayso oo kaana ku bilaabanaya xagana waxaa lagu kawin 5 jumalin fi wasfi almaa biyaha aad kaga hadlayso بحيث تبدأ كل جملة منها بأصبح أصبح الماء باردا oo kale ya أصبح الماء حارا oo kale saas oo kale ayaa la rabaa okay الكتاب الكسلان والعامل أصبح الكتاب بليس بدل بأمسى كون الأمسى العامل متعبا وكله ظل الكسلان عاجزا يعني كون ساسد يغان u sameynaysaa okay kasoo gudub xaga waxaa lagu yiri markaasi tamriin fi al-i'raab وإعرابتي صار العنب زبيبا صار فعل ماض العنب اسم صار مرفوع زبيبا خبر صار منصوب تنوى كاسي يبيت القطار صائرا يبيت وفعل مضارع مرفوع هذا بات بيهيد بات يبيت ونقطة مركا فعل مضارع مرفوع القطارنا اسمه يبيت ويان مرفوع صائرنا labadan iyagu isma bedelin kanun baa isbedelay oo ficil mudaaric isku bedelay marka ficil mudaaric marfuuc markii hore ka ah ficil maadi naaqis halku ka ahaa ficil maadi buu ahaa ficil maadi naaqis baa la yiraahdaa markuu saaran yahay yasiiru hadii la laakiin wuxuu noqonayaa ficil mudaaric marfuuc buu noqonayaa marka baata bay ahayd tanna
يبيت بين نقطتين فعل مضارع مرفوع بين نقطتين. القطار اسمه يبيت وين مرفوع سيدي بaa loo icraabayaa khabarkii weetana mansuubkii waa sideedii marka intan ayaa lagaa rabaa adigu inaad icraabto icrib jumal aatiya laysa الزجاج مكسورا كان البناء عاليا ليس الزجاج مكسورا ليس waa maxay waa ficil maad ناقص الزجاجنا خبر ليس مرفوع مكسورنا وخبر ليس منصوب marka intaas kale yaad icraabaysaa cashirkeen intaas uu ku egyahay hala sii share gareeyo casharka ana laga faa'iidaysta insha Allah like ta iyo subscribe tana waa xaqiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh